السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو وناكسن ملك استوات شوكتان هل كان يواكفتن كي سياسة يويغن هذا وقت دورشوين بدن أيا جري سوماليا مدحوينة أيا قابسة عصب مدحوينة مركو هرو تهنيدينا فرماتشو يمحل كاس إلى هاي كواسترو هذا با انتينان وقود الجلين بلا علي عن نهضو بالبحوينو هيا علي أن هذه أبو ما سنتي ياسين ودت كان الواقع بسنة أيونا أن سوماليات فرحدة يسولوينتا مدحوينة عصب هي أن لكن بروح نيجي دينا مركو هرسا ما دام مدحوينة عصب وقبصدي تطوات كان ودك الصوماليا ها وحين مركو ركوب بلا بدونا ها بل سيد الصومال أي فرماتشو محمد عبد الله فرماتشو ها أي مالك الددوان ها وسودويين هي مركا أديك الددوان هذا داود سيو ها مالك الددوان ها يد ماشاتك waxaana la ka qaban waayo qarqarsiga ku jooga mayna qof saclay iyo qaar kaloo kaliito oo qaarabanaya qisadi awjeedadu maqoolkaas ku jiro qarba meelha jooga qisadi awjeedadu maqoolkaas ku jiro qarba meelha jooga maqarnigan gumaysigii deelqiisha galayo واو علي سومالو سودنت وسودن سما ها تدكو فرماتشيسين وفرماتيسينا وايه ها meel la gaadhaba ها waxaan ka soo dhex xushay dadka ها wiil yar ها oo qiyaastii 12 jira ها oo reer garow ah ها oo hadallo quman ها oo wanaagsan ها ku hadlay madaxweyne farmaajo waliba la ballamay haye bal isagana aynu daawano بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان المدى الصوماليات ميلا يتشوغان waxaan ugu hambalyeynaya doorashada maanta ka dhacday muqdisho oo ahayd mid kaliya laaba waxaana haysanay warqad iyo qalin aan ku xisaabinayay codadka maxamed cabdullaahi farmaajo wallaahi runtii isma ahayn maxamed cabdullaahi farmaajo codad xildhibaaneed buu kusoo baxayaa laakiin waa islahaa wuxuu kusoo baxayaa cod shacab alxamdulilah rabbi caalamiin halkan waxaan ka cadaynay inaanay Itoobiya halkan ka talin gabdho waxaan u sheegayaa caawa kugu daadsan tahay sidoo kale ummadda Soomaaliyeed waxaa ugu sheegayaa gacan qabta maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ugu mahadcelinayaa hambalyadii ugu horeysay caawa u dira weeye siduu xilka u wareejiyey ummadda Soomaaliyeed waxaa leeyahay Soomaaliyaana olaato ummadda Soomaaliyeed isku timaado qalbigooda bacda Allah isku mariyo waxaan leeyahay farmaajo afar sano iyo ka badan baan kusoo daroordaynay caawa xarig miiskaan hooskaaga xariiqnay waa inaan waxaalaaliyo waxaad noo haysay soo bandhiga caawa waxaa muhiim ah oo aan arkaya adeer markii maxamed cabdullaahi farmaajo oo mikrofoonka la wareegay waxaa goobtii dhan yimid saraakiisha ciidamada Soomaaliya oo ah ta ugu horeysa ee uu isagu tari lahaa ummadda Soomaaliyeed والله سجي هذا الكيس اسم الله ya وكلويني waaye هي أن حكمت magaalada muqdisho ها boosaaso ها lascaanood ها ceerigaabo ها haddii ay ku reeyahay gaarisa ها boorama ها iyo meelo kala duwan يسلي لبدا ونيروبي islii ها iyo meelo kala duwan ayaad arkaysa in laga soo dhaweeyay waxaan eegi doonaa magaalada muqdisho هي waxaa jirtay markii dadka laga gudbo ها farmaajo ها waxaa kaloo qayb ka ahaa soo dhaweyntiisa ها bisado بس هذه حتى hadda kaftan maaha ها dad badan baa kaftan mooyi doona هي bisado fara badan ها ayaa habeenkaa isu soo baxay هي muqdisho may soo bixi jirin bisadahaas هي soomaalidana waa taqaanaa ninkii bisada raba dhagax ku dhufan jiray ها ilaa 100 bisadood ها ayaa iyaguna meel isugu yimid هي هي oo farmaajo aad u soo dhaweynaya هي niyo garmayda bisadaha ayaa بسلاس kaalinta ay yaa mala كجرا mar haddii ciidamada loo kordhiyo mushaharka iyo waxaa laga hagaajiyo ها malaha sayladaha hilibka ها ayaa iyana qayb bisadaha كا ayaa laga hagaajin doonaa borta هي bisadaha oo sawira ها iyana aan ku daawasiyo واو بس هذا حاجة كسحية يوم كيما indhihii wada toosha samir ها ya ها waayahay bisadiina waa kuwa هي gaaladii cadcadayd ها kuweenan iyo kuwii yurub ها ayaa iyana soo dhaweeyay هي oo weliba music u garaacay ميسيكا farmaajo iyagoo soo dhaweynaya ها marka waxay qaadayaan ها heestii ahayd ها maanta
maanta maanta maanta waa maalin weyne maanta 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 madaxeen banaane maanta 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 waa balaynu qoladana daawan شايبوي يا ولا اسكو راسي ولا اسمع سي صباح ها وايه عداك الوطن هي جواري ها وقدوميها برلمانك ها وحلا داري ها بشي تشينوري ها اين سو دافر هي قدوميها مغعيسو جواري لا يراهdo ها iyo January ها oo markii la dhaariya ها xogaa soo iskuma dhawa isku dhawiin waaye iyo farmaajo ها waxa la dhaariya ها February ها February iyo farmaajo soo iskuma dhawa ها والله waaye هي ra'iisul wasaaraha cusub ها hadii bisha March la dhaariyo ها waa in magaciisu noqdo Mursal ama Musa de يا موسى sama ها isagana qiyaasta bisha iyo waxa isku beegmaya iyo magaciisa isu eg marka hadii April doorto wuxuu noqonayaa qof magaca April u dhow sida America oo ay ka bilaamo oo kale صح iyana waan eegdo noo sii doona qaybta farmaajo saas horta loo soo dhaweeyay صح dadka Soomaaliyeed waxa yaasiino ay filayaan in mustaqbal fiican iyo isbedel cusub uu ku yimaado waxaana farmaajo uu ku yimid oo uu yimid horta xilli ku haboon waqti ummadda Soomaaliyeed sugaysay qof hayga karaya kaligiina waxa la yiraahdaa far kaliya fool ma dhaqdo farmaajo kaliya wax ma samayn kareen farmaajooyin badan baa loo baahan dadku wada farmaajo noqdaan inuu farmaajo noqdaan dadka shaqaynaya marka 25 golaha wasiirada inta doonayaan ba noqdaan iyo xildhibaanada oo iyana farmaajeysnaa aad fiicna dhalinyarada waliba dambe haddii iskaashadaan wadankan uu soo kici karaya waa ka soo kaabanaya wixii soo maray sax nin waxaan ma aha qolo bedeshay iyo reer bedelay waxa ayaan loo arkaa waan loo arkaa in xilligan laga bilaabo ninkan daacaday ee dadku saa ugu ay u jecel yihiin mar hadii uu yimid in la shaqeeyo oo qabyaaladii gees la iska dhigo meel lagu tiriyo ilaahu muu 25 wasiir oo reerkiisa keeno inna waxaan uu Soomaalidu u baahan tahay dad wanaagsan oo wax qaban karaya uma baahana reer hebel 4.5 lagu siiyo reer hebel xagga laga doono waxa maartay Soomaali wixii weyn la bedelaa صح doorashada ka dhacday magaalada Muqdisho oo ahayd mid dimuqraadi oo si xor wax loo dooranayay ayaa iyadana loo baahan yahay in ay ku dayato Hargeysa doorashooyinku soo fool leh Muuse iyo Cirro iyo hadii ay ku reey Faysal Alwaraabi oo markaa ku tartamaya wuxuu u baahan yihiin sida raggaas dariiqa ay mareen isugu dhiibeen inay isugu tahniidiyaan Soomaaliya waxa u dhalatay wiil iyo aabihi iyo awowgii bay isu yimi haye saddexdiis dhashay waxa weey macnaha saddex madaxweyne ayaa iskacan qaaday haye farmaajo oo ninka cusba xasan sheekh oo ahaa ninkii u dhiibay iyo shariifka oo xasan u sii dhiibay soo saddexdaba golo isugu imanayso ma salaam tan waxa loo baahan yahay si aan lagu daydo bal Arsenal laga waa taasi saddex isu dhiibtay iyana ha keenaan oo gacantiis qabsatay وصدق هذا هاتر تمانية ترتمني مش هسوي ميت خاص مركب الديمقراطية لكن هذين نقطة غير كي أنا كهبضن يريد البنك عناية ينا نبكيده لا أي الذي قيب تهال كاسن كبحين هي وحن تيجي دونا عادو لنا الصومالي كسر عطين دويت تبع هي وبح قورت اللي سجليه ولا سوي الجلينية أي اللي سجلني هي نيو وبحي ما المركز تأخذ بدين سيد مديا اللي بالجوجل ماي لبعتن إلى الصدن marka qoorta bas ku noqonayso xagan ay kirmisid sasad bixinti mana hadli karayso marka tiraahid bismillaah rahmaan rahiim shab adoon dad waxan meesha laga keenay bal aynu guda gallo video clip yar oo laba qof
weli qofka dambe uu aad u cadimi doono ninka dambe waa xirsi oo Soomaaliland imika waa hogaamiyaha xisbiga wadani laakiin nin baa aan ka horeysin doona ay dhibaysaba in la gashado isaga laftiisa gashanaya baladaan eegno oo igu dhibatay وانا كنتي على يعرف شيء هنا واحنا سفرة يوم مركا هذا القناة ودي هذا اللي حول اسمه ذكرارك وعلى السلام يا دمان مجتمع عالكم شوغا وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وعن هنتي عادي يا عاد كلنا هذا قيا وكان نكر لما قبسن حرس ورت قيادك بحث سمارت يقداياي والله حل markii waa ka socon kar laayay waa ku buuxiyeenay si gaariga ka soo saaray iyo jooji markuu yiraahdo shan baa loo gelinaya ubaxaasi wuxuu u baahan yahay in isna la xadido oo la yiraahdo qofku imsu qaadi kara waliba xirsana aad ma dheero oo wana gaaban ilaa 20 ma qaadi karo waa ku badan tahay waa ku badan tahay culayskaas faraha badan leh waxaan eegi doonaa magaalada Minneapolis nin baa kaligiis caalam saaray kaligiis taas waa cajiib markuu wixii ka yaabay ni ubaxyada Soomaaliya ka socda ayuu soo aan dhoofinba ayuu 9 ubax gashaday isaga mas'uuliyad waliba soo dukaan wax ka iibsaday buu gashaday ayuu gashaday taas cajiib waa cajiib marka kaftanka siyaasadda ayaa hawsha daba gali doonta oo soo ogaan doona bal sababta oo ninkaas soo gashaday Saciid Atam oo magaalada Minneapolis nal degan bal horta marka hore aan ku daawasiyo wallahi ninkan waa kaligiisa wasga kaligiisa waa sharaxay laakiin meeshu isu sharaxay ilaa hadda ma garanayno inuu farmaajiyay yahay laga yaabay iyo inuu khaatumisay labada mid bay noqonaysaa Saciid Atam waa dadka magacoodu dhibo inta badan way talo markuu maxaad soo galo fadhiisto qofka garanay markuu yiraahdo Saciid Atamkii ashabaab baa la moodaa oo Mareykan iska dhiibay waa la istaaga marka waa loo huruufaa warkii baa la yiraahdaa qaarna waa boodaan waxa haddu saqaxin yaabada marka waxaan leeyahay ubaxa uu gashaday inuu leeyahay hawlihii qarxintay waxayaan lagu tilmaamay ninkii mihiye iyo lagu tilmaamay xagga nabadda ayaan baalka u gashaday isaga intaan kaga gudbo Muqdisho hawlo badan baa ka dhex socda waa magaalo weyn oo caasimada maxkamado fara badan baa ka jira maxkamadii ugu dambeysay ayaa waxa samaysay 30 dhalinyaro oo wiilal iyo gabdho ayaa intay qol galeen laba qol ayaa la ciyaar anu aanan jeclayn inta badan oo la yiraahdo ciyaarta niikada waliba waxaan jeclayn qofka ka horeysiya ku soo dhawaada ciyaarta hidiyo dhaqanka dhaqan ma niikana wad leedahay hidiyo dhaqan wad sheegaysaa waxa hidiyo dhaqanka la yiraahdaa waa inay noqoto wax adiga ay gabadhaad dhashay ama adiga wiilkaad dhashay aad wada daawan kartaan aad wada sheer garan kartaan haday ku noqoto waxa wiilka u diidan tahay ama gabadhaad leedahay iga baxan daawada hawshan marka dhaqan ma marka bariyahan dambana niikadii ayaa lagu sii talax tagay inna lillahi wa inna ilaihi qaawin waxa ma dhaanto marka maxkamaddu waxay ku xukuntay dhowr bilood oo xariga iyo in wiilasha timaha laga xiiro iyo in la ganaaxo mid kasta 1 milyan ilaa 2 milyan inta u dhaxaysa waqti la qabto wala qabtay soddon wala hayaa horta balan ku tuso maxkamadda iyo soddonkii gabdhihii wiilashii qolka ku nikinay oo xabsiga loo wado kuwan maxkamadda waxaa keenay 3 bilood oo xarig ah 1 milyan oo ganaax ah iyo wixii wiilal ah oo maaragtay meesha jooga intiiba makiinad looga xiro qalabka maxkamadda hor yaalla oo fiqsiga iyo xumaanta lagu garayna la burburiyo wala cali wala dirish tay ciyaareen waan kala xishoonaya inaan dadkeena daawanaya aan tuso laakiin waa mid lagu taxtay tay ciyaareen laakiin taa mid ka khafiifsan oo xogaan si dadku malaha eegi karaan haddii mid si khafiifiyay aad loo khafiifiyay nin kamid oo ciyaaraya
mataqaana wuu bururay qofkaas waa bururay bururka waxaa la yidhaha marka dhinaca baydhabo iyo ereyada marka ciyaaraha ayaa mindi laisku sarsaraa inaa lillahi wala siraya qofku markuu de murqaan dhaafay nin baa bururaya dhulka isla dhacaya samadays hortaan daawan iyadana farxida farxoda farx yasha farx farxida farxida farxoda farx yasha فرح شعور بفكره فرح حقيقي محاكي فرح شعور بفكره فرح حقيقي محاكي لا علي وعجيبي marka waa bucaadu buray kara ciyaartan total in laga saaro weeyaan waxa la yiraahdaa hidaha iyo dhaqanka oo wali la soo rogo in qofka tigid la siiyo ama laga mamnuuco in ciyaarta uu daawado waa hagaag wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeennii kaftanka siyaasadda oo dadweynaha ugu soo gudbinayna magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka qaybta ayaynu intaa ku xidhaynaa qaybta nikada qayb kale ayaynu geli doonaa oo la yiraahdo fanki meelo badan ayuu isna dhib fara badan ku hayaa oo dadka ku hayaa dad fara badan baa heesaya magacyo badan baa lala baxayaa heeso badan baa la ciyaaraya midhihii ayaa qaarkood sii lumayaan waxaan eegi doonaa kuwa midhahoodu sii lumayaan waxaase barnaamijka ujeedadiisa aniga tahay oo si badheer aan u sheegaya in barnaamijkan uu ku salaysan yahay dadka ugu codka xun leh qaarkood marka waad cod xunta haddaad qof ku tiraahid maaha ceeb haddaad qof ku tiraahid waad cod wanaagsan tahay iyana de waa sidaad u arkaysay qofkii inaad sheegtid sharaxaad saxa laakiin dad badan baa Soomaaliya ayaa u haysta inaad cayday ama ceeb ay tahay dad qof ku tiraahdo cod xun tahay ama ma geli kartid fanka waa loo soo wada shaqo tagayaa ii garaacun baa laleeyahay marka ugu horeysa fanaaniinta reer Burco majaajila ay ka sameeyeen dadka codka xun leh soo shaqo tagaya ayaan doonaya adiga iyo dadweynahaba inaan daawadsiiyo أنا كفهم لا ضدكي بقى كفهم لا بس أنا كويسة وجهها وصادم على كتران صادم على دوينا برسيدة يو هاس يو هرت الاسم بقوتيه يعني هاس كرانو تبل هاس ويا أنكم قلنا موسيقى وكنا هذا برسيدة هاس برسيدة والهاس يعني كما إيه تونيتو سيدة بلا هرت هاس لا كالكالكي bandhigiisa xiisaha boqolyowga caashaqa dalkeena loo bogay inaad barato weeyaan karaanyow toonkaagiiba waa laga waayay muusiga organka waxaan waa dhuuntii biniaadamku isku wada xidhan ma garanaysaa marka toonkaagii waaba laga laayayba midda kale xabeed toonkii nimankana waad ka tagtay kuwii naagahana maad gaadhin waxaad taagan tahay meel aynaan dee fahmaynin kala saar ereyada ana adigu waadna ana caburinina xidigahana la balansanaabe waxaan ku nidhi heedhe loo tuniyo garaac ii garaac heesi ii garaac markaa ma waxaad leedahay saa un ku wad barsiida bal raac muusiga wey kalgacalki bandhigiisa xiisa boqolyowgan caashaqa dalkeena loo bogayna war adeer waxaan wax la tuma maahe yaa soo xafido waxaan ku yiri waxa hagsan la kaalayo dhuunta subag soo mari subaga goreeyada ma wili ma la cabti arku subag waxaan ku leeyahay saasan laga duuba bahala naga duubnaa de maxaan ku tuma waa laga waayay beeska halka hada tana codxin waa dhaftay ilaalay ka gacalki ilaa halka ay maraysa waayahay ninkaas isagu waa qayb majaajilaa ku jiray aad buu u mahadsan yahay siduu matalay dadka codka xun ninkii uu codka xumaa sanadkii la soo dhaafay ayaan adiga iyo dadweynaha daawasiin doona ninkaas musiga loo garaacayo kharashkiisa isagaa la baxay weliba isagaaba bixiyada laakiin waxaan u cadhaysnahay ninka musiga u garaacaya mar qura mu odhaniyo heestani kaa mari mayse hana wareeri sidii kii horena daawanay niyo ka daasna siidaa buu yidhi haddana kaaga darane ninkii codka xumaa heestiisa wax magaceeda la yidhahdaa fanka ha ceebeen ibraahim daawano ملك يا فريستان
فانت لو ابنهايتال راهو الرهوا كفانا ملك يا فريستان فانت لو ابنهايتال راهو الرهوا كفانا أنا دمر كتير فضود مر بدن لصوفري فوت كذا يا وين كباها مع واقفانا أنا دمر كتير فضود مر بدن لصوفري فوت كذا يا بير تراها مع واقفانا فنانا دوما قرانتي دي توسياي ولا عليه أنا هاي بفضودا فانكنا عيبين فنانا دوما قرانتي دي توسياي ولا عليه أنا هاي بفضودا فانكنا عيبين والله أنا قرن ما يموي مهسي يا هاسيو لسه سحلنا فنك عيبين كالو يلا وين dadka ka qabana codka xun loo codka xun wala soo ruriyo way waxaan doonayaa raaciyo ninkii ugu codka xumaa sanadka 2016 soo dhaafay wanaga sheegnay heesaha iyana af Soomaaligeedu aanu macno weyn sameeyeen macno ma sameeyo marka gabar baa waxay ku heesaysaa inta heesaysa midna ma rabaan magaceedooda inaan sheego gabadha heesa waxa leedahay everywhere oh my god everywhere oh my god haye bal adiga dadweynaha dawashanays everywhere oh my god everywhere if I fall a curio ayahe sugayen everywhere oh my god everywhere tani waa ajaayib weey oo midhow male ya waxa ka fahmi waya midhahaasna waa taa midhaha kale ee iyana aan doonayo inaan ku soo khatimo barnaamijkan fanka ha ceebayn ayaa midhaha waxa kamid ah ninkan uu qaadi doono yartu way shidan tahay iyo u sheega yartu waa shidan tahay la sheega waa shidnaanta halka ka shidanta oo hees loo beddelay marka dib haddaan ereyada aan dib loo eegin sugaanteeda oo aan qaafiyadooda miisaan la saarin waxa soo socota yartu way shidantoo shiishada cabtaa iyo sheega iyo dawsho wanaagsan موشكتين عاشوي شدنتين موشكتين لا لله علي عجيب ويا رتل يا عجيب تاسين تمتها ويا مقدشة مركز كل قرية كما قال حلقي أي دورشة لا عيسى لكن مركز دورشة اللي ماتي والله دورتي الحين محمد عبد الله فرماتو أيام ياسينو أن تجناش marka noo bogoonisan loo kulmay waxa ka bilaabi doona Xasan Sheekh Maxamed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ni waxa ku yiri maxaa soo xidhay dhaqaale fiican baad bixinaysay magaalada deganeyd in badan baad ololaha ku jirtay xagee wax ka qarmeen wuxuu leeyahay in hortiis ma lahayn waa laga guuleysan doonaa in kastoo aanu hambaliyay ninkii iga guuleystay meesha laga soo galay waxayd campaign manager-kaygi maamulihii ii maamulayay ololaha doorashada ayaa wuxuu ahaa Cabduul Maxamed Algaas Cabduul isagoo madaxweynaha Soomaaliya Puntland ayaa hadda campaign Xasan waa xasan uu siyaasaddu waa balaayo reer Puntland hadda way ka soo horjeedeen Xasan Sheekh madaxweyne noqdo haddana madaxweynahooda ayaa campaign manager waa rin ajaayib in siyaasadda Soomaaliya la aamin karo ma ku sheegay siyaasadda laga aamin karo reer galmudugna waxa isna campaign manager ku xigeenkiisa uu ahaa Xasan Sheekh Cabdikariin Guuleed oo madaxweyne ka ahaa meesha سو عجيب ما عجيب وي لبض بوحي لاني حمر وشبا عبدول وحاو سي ديراي عاد حاجي هاوش بننا وهو لا هدلay xildhibaanada baarlamaanka ee reer Puntland buu yiri hawsh bina
federaalka ku jira dabeetana ereyga ugu horreeya wuxuu ahaa ninkaa uguma shubi kartaan cali xaaji la yidhaha anu dee wax ka dhexeeya ma garanayo cali xaaji dabeetana maxaanu samaynaa xasan ugu shubi xasan waa lagu shub dabeetana waaya bay yidhahdeenoo gudihii markay galeen shaqadoodii bay qabsadeen hawshoodii loo dirsaday tii cabdiweli u dirsada maahe tii soomaali u dirsatay tii soomaali u dirsatay ayay qabsadeen halkaa wuxuu yidhi xasaniyo jug weyn ayaa iga soo gaadhay waxaan ku yidhi dhib ma leh intaad qaban karaysay ilaahay kuu qoray waad soo dhammaysatay hawl lagugu xasuusto oo rekordka kuu gasha oo istiraahad alla halkaasaad beriga aad madaxweynaada u hagaajisay ii sheegno dabeetana cabaar buu fikray wuxuu yidhi alla waxaan sameeyey waxaa jirta dastuurkii soomaalida oo ay ku qoran tahay 2 gobol iyo wixii ka badan ayaa maamul gobol loo sameynaya ayaan jibiyey dastuurkii baan jibiyey oo maxaad samaysay hal gobol iyo badh ninka sameeyey baan والله وانا رجع galmudug ee Soomaali oo dhan sanduuq kaga dhigay inna lillahi marka cid dastuur jibin karta ma jirto waan aniga ma jirto ragga waa jibiyay ragga waa jibiyay waa dhinaga jawaar baan u tagay waxaan leeyahay jawaari waxaad ii sheegtaa intii lagu jiray doorashada maxaa kugu dhib badnaa ma waraaqa xumaaday qaar codayn kari waayay qaar meesha rabish ka dhacday sidee wana waxa soo dhaxay gad raabir ninkii weynaa arkaysay ee gudoomiyaha baarlamaanka saacadihii faraha badnaa ee meesha lagu jiray waxaan ku jiray aamusa fariista ka daaya saafka joojiya baasmahay waxaan bay soo bedelay buu elementary school ciyaal yar hor fadhiyo macallin war aamusa fariista adiga hebel noqo hebel ayaan ku waashay markii aan xiiqay ayaan beyle ayaan u dhibaan ku yiri war beyle waxa sameeyay niyada waa xabiibtabe bal iga nasi oo aamusayda iyo joogsada halka ka bilaabay marka baarlamaanka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay halka waxa iga soo baxday inuu la tartamo baarlamaanka Russia ka Mareykanka ka Jabaanka ka Ingiriiska oo uu kaga daydo akhlaaqda iyo asluubta sharciyada sida loo eego ma aha on qura madaxweyne la dooranayo bari hadana sharci baa la ansixinaya marka hadii sharciga hadana lagu fariista istaaga waxa kuma kabo odayaasha waxa la iyo haweenka arrinka sharciga la ilaaliyo inaga geejiya farmaajo waxaan ku weydiin intii la fadhiyo golaha ee wax la dooranayay kulay nin deed tartamaya wadnuhu ba bugbugle ma absidi kugu badnay maxasan bay ka haysay musharrif ka haysay Umar Abdulrashiid bay ka haysay wuxuu ma waxa soo midna kama cabsan in laga guuleysto iyo inaan guuleysto labada diyaar bana laakiin dhibki jiray wuxuu ahaa gabre oo dagaal general gabre oo dagaal naga dhaxeeyay ayaa ilxu lagu soo eegayo aad ii hurufay meel ugu dhow lagu fadhiyo haddaan guul dareysan lahaa aroortii musaafir lagu aroortii diyaarada ugu horeysa saar lahaa markaa imika musaafiriskiisa ma ku jiraa buu ninka xamar ma wada joogi karno kiisi hadda lagu jiraa la musaafiriyo cabdiweli maxamed argaas baan u tagay oo dhinacan dee ka ahaa campaign manager waxaan idhi farmaajo waxay dadku leeyihiin waad xumaysay isagaa ku keenay oo kaa dhigay oo ummadda ku baray oo yidhi xitaa markii la casilayay ilaa ninkaas wasaare noqdo oo hawshii halkaa ka sii wado ma saxeexayo inaan is casilo ninkii adigoon la heshiin ayaad markii dambana noqotay oo isagii dee laga qaaday xilkii adiguna aad noqotay madaxweynaha puntland imika isagaa madaxweynaha weligeed ma heshiisin maxaad ka filanaysaa wuxuu wallahi waa arrin aad u adag aniga isaga dagaalkaas waxaan ka baqaynaa inaan puntland iyo federaalku uu dagaalo bilaabno se yeeshee kaa puntland iyo u dhexeeya muqdisho ana waxba igama dhexeeyaan waxaan ka cabsi qabaa inuu iga aargoosto oo uu igu soo rogo xayiraad dhinaca dhoofka oo diyaaradii fuuli jiray shirkadaha inuu la hadlo aniga lama hadli kara buu yidhi inuu shirkadaha la hadli karo u yidhahdo ninkaa ma qaadi kartaan ya waayo de isagoo ma rabo inuu dhoofo ninka la yidhaahdo haddii ilahay ku reehay farmaajo marka xayiraad dhinaca dhoofka ayaan aad uga cabsi qaba buu yidhi wallahi waa arrin adig wey waa arrin cajaayiba dabeeto xamar ahayd meel aad u qurux badan oo wanaagsan oo dadku ay tahay markii ugu horreysay ee aan ka maqlo kelmad la yidhaahdo Soomaaliya ama Soomaali ha noolaato ma maqlaan in badan muddo dheer maan maqal ilaa miyiga ilaa magaalooyinka ayaa aad loo dabaaldegayay looma dabaaldegeen marka farmaajo qura ee waxa loo dabaaldegayay Soomaalinimadii oo soo noqota oo dadku ay filayaan marka yidi dilaad wanaagsan ayaa iga muuqatay Yaasiino
aad iyo aad cali aad iyo aad baad umahadsantahay adiga mudan waayahay halkaa waxaanu kusoo gebagabaynaynaa waa kaftankii siyaasadda waa aniga oo ah yaasiin ducaale iyo cali xaraare waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo